تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحدون مويانه وحكلوا إذن دوني كرتان ما جرتو إن الله كان عليما حكيما بل وحدك على صحابة لغاية ما خير كساكو جري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هاورنين بل ما هدان سدا يالي لها وحاسا صوبح الأساسا نقولها ولقاها مودين وقت وكرافي دادك بربا إسلاه وقت جيبتك أنت ماشي فدي أنت كوها ضيع عمرك بقى وحصو صار يالان كرتا بني آدم عقلك كجبوبه هداد مانك كجبوده أيوم تجبوده حلقة دادك بريسة وما تكون تنشربات أما وحبات بركة ريسة داد كنت تنشرين تكون بلابين علماء دوا ويناي دوني دا نقضي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سوى تاين قد يرين يوحط المامية إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبي قول له هدو قيامه حقا كصوب لا بوصاقعه وأدقعنتك هيسو فصيلة ده وحلا إذا جت مريت كير الله أبقاليه جت مريت إذا أدقعنتك هيسو هداد كجارسين كرتين هذا أبقى شبه نبي قول يا أبقال بير هداد كجارسين كرتا بير وإن يدان قيامه بيننا نركين نبين فردنا ونقول وين جبوبي Soomaalidu de afartan jirkay ku gabowda Soomaa fu Soomaaliga markuu binaadamku uu xoog badnaa markuu gaaro ayuu yiraahdaa waan gabowbo wax walba way ka dhamaadeen ilaahina wuxuu ina leeyahay wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minin wartadka mu'miniinta wahniyo idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinka koreeyaba ilaahay tilmaamaya hadda kuwa mu'miniinati hadda dariiqa iimaanka raacdan waa koreynaysan حتى مركنا أودا دو أنت تقبل كرتا هيرات لكن أنت قبو قف وحصو صار له قف وحترا هو نولش هذا ما أنت واحد قبنا يسا وين تسوي ديسا ما منفع دون بكولي هي مش منفع آخر كولي هداد واحد لبدا كده حركي ويدو ووحي اللي يقول كتك سو جد بالنبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جاردك وهالرسالة فرصتها يسطو فرصad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yareysanaysaa wax weyn noqda waxaad yareysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraan inaad qaybtaa waa wax kula yar Soomaa xadsalada oo hadan maalin kasta sadar qayb goorma quraanka dhamayn hadan sadar qayb goorma quraanka dhamayn waxay dhaan dhowr iyo 10 sanadood ku dhamaynaysaa hadan maalin kasta sadar qaybto hada waa sadar hal sadar waxay dhaadaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markan aad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin hadda istiraado ma xaashi aan qorayba buug noqon doonta maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo wax qabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira aqoon darrada waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen jahliga fadhiisiyay beersi loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiyay jahligu marka dadka uu duleeyaa إذن أقنت هي علمه ومن القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا أقنت كمدة تقدر تقف أيضا له جهلني ما هي السطح ولو حوق بدني ولو الذكاء جيسو intelligence كيسو وصريه ولو عقل بدني هاي مرة دانت منتج هنا وحصو صارين هاي هذان nolosha waxa qiimaha ku sameeya ma aha inaad aqli badantay
waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana uu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay waxay yidhahdaan daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen wax qabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keeba dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo qurama waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisa ba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagi ba khatar galaya ولذلك بقى طبعا ما انت واحد تلماميان قفكو انه نشاط سكيليو ما معان بعد غبطه ما سكر بعد غبطه ما كم بعد غبطه ما انت صعو انت قبو انت يعني waa wax qabo fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna aduna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ayuha alhibba ajsigu dad buu gaaray inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan acjasu nnaas man cajisa can ducaa dadka waxa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah barraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa barri camal kale u dhigo maya barraan samayn doonaa wax kasta barru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeyahay insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camal isuma bedelayo in wax la bilaan gareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaan gareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin نبي وحينا ليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مرنا بها عاجز مركي إلهي والنبي يحيى الله هدلي وحلل يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحوقا وقادة بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشره سي الددال يفر فرعوني كتشرته إلهي كتابك سوق قادة بالليل أيها الأحبة مركز وهستطاع ما شوي فلفوشة وحي ما أنت قوها بنا إن قبضت مركز قبون ويدو ويسسي كرتا المؤمن القوي
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفينيا قفك مؤمن حقا يسدوغ خير بدن يهي كي ضعف وكتشره قيبها الضمانة وحكوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام وصية وصينا يددك مسلمين وحنا بيقول المؤمن القوي مؤمن كحوقه كاسا خير وأحب إلى الله كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف مؤمن كعقيدة ديسا أما إيمان كيسا أما عبادة ديسا أما أعماشيسا آخرة أي ليدته قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي وحدودوبهان تلماميسا قوته حتى قوة البدنية قصة مثل النبي موسى إلهي مركك والرمي غير مدويمي مقالة ماشا dadku xoolaha waraabsanayaanay habluhu laba hablood ay xoolahoodii cidlo ula baxeen maxay idinka idinku dhacay buu yidhaa xoolaha waraabsan weydeen waxay yidhahdeen annaga aabahayana waa gaboobay yacni waa daciif maa yaqdir shay annaguna ma gallo raggu meeshana isku jiidhayaan ilaa iyo ay ka baxaan dabeetana wuu u waraabiyey hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo ayaa waxay tidhi يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أبو نكن شقالي سي سبيتري أجير كدك إن خير من استأجرت القوي الأمين بيتري قف شقال الله درته وحاوفي عن قف حوق له وقوي وحي قبن كريه أماننا له. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المام يا مؤمن كحوقا ويقول الرسول إلهي رمينتي سيا طاعدي سيا عبادتي سيا أعماش آخر كحوقا تدباتشي راسدك لو حوق بدن لكن مركا اعتماد عبادات كي دينتي عقيدة ضعفاء كان كو واقف باب كاسي كحوق له كاللبات واقف بين هذا منتجة قف وحصاصار له كاسي وك خير بدن مؤمن كضعيف هذا نوح النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير مؤمن ودنا خير بكوشرة توقفك إيماني عمل لي مهلا بكلا مرتبة سرية خير بكوشرة وحيد هذا علماء البلاغة مسألة كلا الاحتراز بين هذا نو وحيكت المامان قفكو انتو وري هذا إن سيابك الآن لو فهمين أيك احترازا مثلا الله القرآن كوحكولي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا مص النبأ إلى هيري كوي فتح مكهر تدحولها بحيات دقا الله ما يدين توسوها القمي كوا ساد درجة سرية وفتح مكة وحي كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين هداد سيدا وفهم لهيد ويقلدم لهيد لكن إلهي بكسي جوابه وحولي وكلا وعد الله الحسنى دمان تود إلهي باوية بوهي وناق لبضب وناق بيلي على كل نحي نوصعنا وفي كل خير تو إني تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لقاها لا طاعدي سليمي كل بين خير كسوغيني لكن مركي تمادام مؤمنك إن كلاسيفيكيشن لغو سمعيه إن لك لصاعه إنه كقوي كخير بدن يحي كضعيف كأبو نبو التلمامي عليه الصلاة والسلام قاعدة مركو نبو الشاقي أيو حينات المامي يا دردارنا نسينيا دردارن كان يوحى وشاقي وحي قفك مؤمن كقوي كدق لها حا قفك مؤمن كحوقي ليه وحي نبو يقول كو احرص على ما ينفعك وحد كد داشاه oo ilaalisa waxa ku anfacaya nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa waqti isku mid inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha
laakiin midhaha iyo raadka ay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababtay u kala noociyeenna waa masalada tan camalka bini aadamku qabtaa waa saddex qaybood mid uun inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badan oo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa aakhirana wax kama tarayso qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya bitacbiiri ahli lcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan qof wax soo saar le ahaw qof wax tara ahaw qof wanaagga qabta noqo noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tag haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekayo oo dhamme waxtar ma leh kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhamme waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisa ku qaada nabiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu ma la yacniih qofka muslimka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin tarkuhu ma la yacniih waxaan isaga khusaynin waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin maanta dhaa haddaad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay adiga waxba ku tari mahaya warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan leh waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhammi aktaruhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sidaa awgeed buu nebigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah ilaahayna kaalmayso ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro qofka mu'minka ee dhabta ahi quruur kuma dhaco iyo cujb isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu markasta u baahan yahay mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay sortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaanu ku caabudaynaa keliga baanu kaa kaalmo dalbaynaa
qofka muslimka ahi markasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga waa qof muujiya inuu yahay adoon daciif ah waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna khasnadaad jannada ka mida makuu sheegaa faqultu balaa yaa rasuul allah haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna malihi qofka muslimka ay markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo arguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaardhe nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaa tacjis ha caajisin kuwaa maxay qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofka wahsiya cadamuliraada waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla cadam alqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay yidhaahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku rumaya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degaya markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodoo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh
oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu yidhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabati alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadami alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana uu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nebigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaadee baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika buu nebigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nebigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kulla yowmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa yeesuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa laguu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nebigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waa duco
هنا دتك ودو عيسات كلا بخيليسا أيها الأحبة هل أنا عجسه مرار بدن بنقضى جهلية مرار بدن بالسبب تعجسه كانت عيتها يقون درضة وهي سبحان الله داند أجر كذا قرن إنه أقون درك وهي سطة أقون درضة وحي كانت قفك إنه وحبق بموايه تقدر توقف أيضا له جهلني ما هي سطة ولو حوق بدني ولو الذكاء جيسو intelligence كيسو وصريه ولو عقلي بدني هي مر هدان منتج هنا wax soo saaraynin waxay yiraahdaan nolosha waxa qiimaha ku sameeya ma aha inaad aqli badantay ee waxa weeyaan bay yiraahdaan inaad hardware kartay nolosha taas raad ku leh qof xoog wax u qabtay inaad tahay garadka badan hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garad bandidna waxba kuu kordhin mayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamar darradu halkay gaadhay سدرادت بها إلهي وحليه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين إن آدم كي ولا الكي يدلي مركو الدنبقى قيستي ولو حوق وينا يحوق ولا الكي كدلي وقبي kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu galo meydkii walaalkii buu garan waayay ilaahay baa wuxuu soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acjastu an akuuna mithla hada alghuraab halaagaygiiyow kaalaye ما وحن كليتا ما وحن كوحتر حماضي إن تكها سكلا نقضه إذا جهلي وتكو معلن كهجدي تضبطنا ما أنت الصومالية دوس كفر فرديا وحي لا فرديا وحي قبتان بيجرون واي جهلي كفريسي بيرسل الله قطع ما قرنايو وحكى لسي الله سمايا ما قرنايو أقونسي الله برتا ما قرنايو جهلي بفريسي جهلي ومركز دتك ودلية إذن أقونته هي علمه ومن القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا أقونتها كمدة ساوغيت أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن قال دردار ميا استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجز قرآن كان إلهي وحينات المامية إن بدن با إلهي وحكا قرآن كقورا ميا رير بارو إسرائيل لليه خذوا ما آتيناكم بقوة وروح عن دين كانوا يدين سودة شني ورسي اجتهادي يفر فرعوني حوق وكتشرو خذوا ما آتيناكم بقوة با إلهي ليه نبي موسى محا إلهي ليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي والنبي يحيى الله هدلي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحوغا وقادة بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشره سي الددال يفر فرعوني كتشرته إلهي كتاب كي سوق هذا بالليل وحا قرآنك إلهي وكسي فينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إلهي وحلي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وحكوت المامي صلاة هذا وكعا وكوكعا إيغو كسالى إيغو وهسي يا عاجس هيو
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يمادان با إلهي يدي إيغو حالة كسوغان مويان أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi athaaqaltum ila alard war dadka mu'miniinta ahu maxaa idinku dhacay oo haddii la yidhaahda ilaahay tiisa usoo baxa jihaadka usoo kaca athaaqaltum ila alardi baa layidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahay famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu thubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna fayna waxaa idinka midaba ilaahay leeyahay mid dadkaba cagsi gelinayo fadhiisinaya fadhigu markaa caqligana uma fiicna iska fadhiga aan waxba lagu qabanaynin jidhkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna lazinessku markaa nolosha meel laba wax kagama leh ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weligaa ha moodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataarka sheegi jireen yani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta laga yaabaa dadka badhaysa oo maanta konton jirbaad ama waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanisku siiyey adigoo waxa ku xilka ku saaranay wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasiila فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبي قول له هدو قيامه حقا كصوب لا بوساقعه وأدقعنت كهيسه فصيلة ده وحلا إذا جت مريت كير الله أبغى عليه جت مريت ده أدقعنت كهيسه هذا تكجر سينكرتين هذا أبغى شبه نبي قول يا أبغال بير سو جد النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جارد كهر رسالة فرصات هيسته fursad wax lagu qabto inaad haysato oo inaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa oo leenahay waan gaboobay Soomaalidu 40 jirkay ku gabowdaa Soomaa fu Soomaaligi markuu bini'aadamku uu xoog badnaa markuu gaadho ayuu yiraahdaa waan gaboobo wax walba way ka dhamaadeen